السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. السلام عليكم عيد مبارك. عبد كيرو عيد مبارك إن الله هاي. عيد مبارك. صوت دوادا صوت دوادا صوت دوادا صوت دوادا. Somali ويني Somali جريري Somali بانتوي يا soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada. maanta waa sheekaysanaynaa, wax baan isweydiinaynaa. soo dhawaada, hala soo dhawaado, hala soo dhawaado, soo dhawaada, soo dhawaada asxaabtayda, soo dhawaada. mahad jaamac daraadna waa iga carartay. waxaan rabaa aniga maanta inaan wax ku weydiiyo. عليكم سلام mahad jaamac. waxaan rabaa inaan wax ku weydiiyo qolo isku tilmaamay shanta xisbi oo xasan sheekh uu ka mid yahay, cabdiraxmaan cabdishakuur ka mid yahay, iyo qolooyin kale. habiibi hobby waa ku boy waa ku salaamay. habi boy waa ku salaamay. oo macnaha oo ninka la leeyahay mahad jaamac waxaa waay galmudug waay. mahad jaamac waa galmudug. dowladdii khaata ka taagneed, dowladdii ayaa khaata ka taagneed. haddana waa ninkii oo garab siinaya axmed madoobe iyo nin galmudug joogo. maxaa ka dhexayn karaa niyo mahadow? waa ku soo qabanaya isoo qoro. waxa ka dhexayn karaan rabaa inaad wax iiga sheegtid. mahad jaamac iyo ninka la leeyahay maxaa la dhihi jiray axmed madoobe, maxaa ka dhexayn karaa? mahad jaamac leeyahay kan kale maxaa la dhihi jiray mahad odogaa magaciisa magaciisaaba ila qoyaaba. odogaa mid waaye, fiqina mid waaye. mahad salaad iyo ninkan la leeyahay axmed madoobe maxaa ka dhexayn karaa oo hataa ugu gargaarayo oo maanta dowladda oo leeyahay war niman yaho balaayada ilan dulmigaa laysku kaalmeeyaa. saaxiibkeeyow anaaba kuu baahane soo qoro bal mahad haye aw boy soo galay. habiibi boy kusoo dhac oo kusoo diray kusoo dhac. هاي هاي سجلها بيو. السلام عليكم. الو الو هاي صدواو يورمبو نبات واي صدواو افكا صدواي يا هي اوتكا صدواو كده بلان تليفون صدواو ميو. هاي هذا عافماتك كورمبو خير والحمد لله ما شاء الله. ننجرر وينه وينفع انت هاي هذا كان ألف يخنقي قرتي ما شاء الله. وانا كفر حسنا يقول له كسي كل جاينا بقى. انت جوكتا صوماليا مس افريقيا اما اسيا يوروب مايا امريكان جوغا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله كبرك اياه ان شاء الله. عدنا يا ابين انت جوكتا مركع دي ملا لو مكسي مركع دي
ayada aadan u kasaa marka maxaad dhihi lahayd kuwaan macnaha jubbada hoose joogaan ay leeyihin axmed madooba noo fiican axmed madooba saan noo ah oo jareerta maxaad dhihi lahayd jareertaas in la laayaan rabo in la laayo ya wax jira ma aha jareertaasi maya in la laayo hadhihine waxaad leedahay meesha iskaga baxaan waddankoodii ha ahaadaan goshoodii ha iska galaan ma maqlaysaa taasaa u dhaantaa inay goshooda iska galaan ay fallaar samaystaan ama qoryaal samaystaan al-shabaabtaas la dagaalmaan kadibna axmed madoobe wax bay ka qaban karaan laakiinse haddii ayagoo joogaan maxaa la dhihi jiray kismaayo ay waxyar isu waxyar ay heliim dareer hegga mininkaas hegga oo maka saaso ya maya aniga kituse sug aniga kituse walaalkay walyar insu waa kas meelas baahurta tumiya maarawayto day mininka gaduudan kor fiiri minin gaduud maarawayto minin gaduudkas wey halo soo dhawaada yaa wehel laga dhigan karaa ninka aqli leh yaa wehel laga dhigan karaa laakiin ummaddan kismaayo haysata dadkoodii ay laayeenba dadkoodii waxay ku soo laayeen maxaa la dhihi jiray dadkoodii waxay ku soo laayeen maxaa la dhihi jiray kilinka shanaad waxa meesha joogo dhan waa canaasiirtii kilinka shanaad waay idil waa ku salaamay walaashay dadka meesha joogo oo kismaayo joogo waa canaasiirtii kilinka shanaad oo abdi ilay ka soo fakadeen firxadkii abdi ilay waay ayaa axmed madoobe u yimaadeen marka ninkii kuwaas wax ka sugayow bal aqli male ma xishoodaan war ma kismaayo ogaadeen keliya ma iskale bal fiiri kii guddigii uu dhisay maxaa la dhihi jiray axmed madoobe waa ogaadeen keliya wixii doorashada u ordayo waa ogaadeen keliya guddigan hadda isbedel doonka la leeyahay waa ogaadeen keliya waa war waxoo dhan waa ogaadeen markaalay soomaalida meesha degan waxba maahan miya ma xishoodayaal waa ogaadeen ma xishoodo kurta gacanta geliya in laga qabsado maahee si kalena gacantiisa ugama baxsado waayo dhe asaga sooriyo gobonnima maba yaqaanba ogaadeen waad ogtihiin jareerow waad ogtihiin wixiis idinku sameeyey ogaadeen waad ogtihiin ilaahay ka cabsada danihiina fiirsada geedihiina cambaha inay sumad saarteen 91kii dagaalkii siyaad bare laga kala orodkii maxay yidhaahdeen annagaa horaysanay dhulkan geedaha cambaha war lo-aan maqli jirnay oo sumad la saarana iyo geel adiga camba dadaad intaad timaada sumad saaranayso aqligaas intees ka yimid ya aqligaas intees ka yimid camba dadaada sumad lasa waxay ku leeyihin jeriskii aan u soo maray jajabkii aan u soo maray jeriskii aan u soo maray jubbaland ku lahaa dhaantaaba lagu heesooyaa jeriskii aan u soo maray jubbaland war jubbaland colombos kii oo ninkii oo maraykanka hele la dhihi jiray ya ogaadeen miya jubbaland dadkii heleen war ogaadeen jubbaland ma helin ka hor waxaan jubbaland waxaa waaye magacan laanlaankan ma aragti waa magac idab daran waay ya magac idab daran waay waayo dhe waxaa la dhihi jiray jubbada hoose iyo jubbada dhexe jubbada sare baayo dhulkaasay ahayd jubbada hoosena waxay ahayd dhulkaan aalta jubba iyo aalta jubba sare way marka hadda waxaaba yimidba jeriskiin u soo maray helitaankii jubbaland ya oo jajabkiin u soo maray ilaa iyo aan ugu imid maxaa la dhihi jiray dalkan la dhihi jiray kilinka shanaad
war kilinka shanaadan helnay annagaa helnay kilinka shanaad soomaali weynaa heshay meel la helay kilinka shanaad waay maahe jubbaland lama helin jubbada hoose lama helin laakiin kilinka shanaad soomaali weynaa heshay way ku baaba'day ya nin way ku baaba'day hantidii soomaaliya ku baaba'day abaaldaro ay sameeyeen haddana waxay yidhaahdeen annaga kilinka shanaada nala dhaha soo haddayna waxay ahayd soomaali weyn raadiskeedii ayaa intaa dhibaato loo maray jareer iyo jilaacba way ku baaba'een jareer iyo jilaac way ku baaba'een hadda dadkii annaga wax qabadka aan siinay aan wax u tarnay ayaaba nagu soo duulayba annagiyaaba na qabsadeenba war maxa ilaahay amarkiisa badanaa war soomaali ogaadeeniya oo weligeedba ahaan jirtay qaxooti ahaan jirtay war soomaaliya yaa soomaali ah oo qaxooti ahaan jiray xilligii dowladdii siyaad bare sheegaba ma ogaadeena ma mid kale ya ogaadeena qaxooti ahaan jiray aniga ogaadeen hadduu ayna hay soo caayo anigana waa ayna maanta laakiin aniga caay maa runtan sheega ninka siyaad bare xilligii dowladda soomaaliya jirtay oo adduun weynaha soomaali ay tahay oo qaxooti ahaa waa kee waa qowmiyadee qowmiyaddaas waa ogaadeeniya hadda ogaadeeniya ayaa dad qaxooti ka dhigoysaa ogaadeeniya ayaa dad barakicinaysaa ogaadeeniya ayaa dad dhulkoodii boobaysa oo gadanoysaa axsaankii loo falay dibtii loo soo maray intii ruux ayaga dartooda amxaar u dishay ayaa maanta ayagiyaa dad qaxooti ka dhigoyiin ma xishoodayaalka ogaadeenka ah ya ma xishoonayaan xishood ma leh caqdheer ma xishooto diintooda waxaa way xabad inay waryaa xabad qaata xabad haddii run aad rabtaan nin ogaadeen le ina dhulkiinay oo edab uga baxo lagama yaabo halna ogaada soomaali weyn waa idin maqloysiin war jareertaa walaalihiina oo soomaali ah oo maanta oo masaakiin nin masaakiin ma jiro aqli dara masaakiin ka dhigtay yaa masaakiin ya eelayaa masaakiin waa la dhihi jiray maantana waad arkoysiin war wax masaakiin ma jiro laakiin aqli daro ayaa masaakiin idinka dhigtay jareer ya waa xoog badantiin xooggiina warya qoriga macnaha waxaa la dhihi jiray 5 zoo ayaad qaadi kartaan maxaa aqligiiskeedada iska waxaamaynaysiin ya 5 qori oo macnaha baasuuka ah halkii nin jareer waa qaadi karaa waxa idin haya aqli daro ma aha waxa idin haya idinkaa og fulay baatiin xaarween waree fulaynimada meel iska dhiga eelaya fulaynimo meel iska dhigay waree dhulkiina ogaadeentaas ka saarta anaa runta idin sheega ma xishoonaysaa miya mana fikiraysin miya ya waad aragteen dadkii meeshii soo istaaga dhan xabad kuma jirtaan xabad meeshii dad soo istaaga xabad kuma jirtaan halkoo wasiiraad la hedeen wasiirkaas waa la qabtay banaankaa loo tuuray wasiirkiina banaankaa loo tuuray war haddana ma wax baad suganaysaa ya axmed madoobe meeshu muxuu ka yahay iyo qoladiisii ilaah markii laga cabsanayo maxaa ii soo haray mahad salaad war mahad salaadow haddaad wax tarayso adigo iyo fiqi iyo odowaa iyo shantan xisbi la sheegayo oo xasan sheekh xisbigiisa uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kiisa waryaa hoy haddaad dowladda haddaad idinka mucaarad ku tihiin dowladda mucaaradkeeda gaar u ahaada laakiin mucaaradkii dowladda dad dulman dhexdeeda ha soo gelinina anaa runtii idin sheega waryaa calaykum salaam sheeka ii socota waryaa hoy mahad salaad adiga waxaa tahay qoladan la leeyahay habar gidinaad tahay kismaayana haddii qayb la yidhahdo habar gidin waxba kuma laha habar gidinna kama hadli karto habar gidin kama hadli karto war haddii idinku wax ka hadlaysaan idinkii aba kala qaybsane qaar waxaa joogaan dhuusamareed qaar waxaa joogaan maxaa la dhihi jiray guriceel qaar waxay joogaan hobyo
قار عذابي جوغان قار حمري جوغان وإذنكا بتصبح قوي إله إذنكا ديجي يا إذنكا بتصبح قوي إيه محاشيكي كتامبا يا دو ديسان محادو دودان جبل هوسنا محا إذنكا جرا ما غجيرة تكتين وكسو عرفتين هذا هبر جديرتين يا ما غجيرة كسماية تكتين أو كسو عرفتين محا كسو ديفتين ورهوي مساكين تا بدودا كبحا حداد wax u tari kartaan u tara laakiin se dad dulmiilow war ma hishoonaysaan miya adoo maanta xildhibaan waa ninka dhoorsan xumaanta dhanka dhoorsan waay adoo xildhibaan federaal ayaad leedahay Axmed Madoobe xafaraha laga waryahoy dastuurkan aad sheegayso muxuu yahay oo dawladda ay ka banaanka uga bixayso ay ka hadli karin maamul goboleedyada dastuurkaas inteed ka keentay guriga ayayda ma ka keentay eeyo ما تلا أذان كل هذول قولي أيدا ما كنتي دستور كعادلي دولة لا فرماجة جن أنا شغلكم مالي لكن دولة ودولة إذن كابي ستي فرماجة ولا كيمها إن عذير كينا معها لكن إذن كدورتي ما مريسا دولتنا فرماجة معها دولة ودولة حكومة دانيته إذن كدورتي هذه دورتي مع السلام فقي عذاب دورتي وذباء عذاب دورتي ما حد شيء حدنا عذاب أفكار في دورتي محاولي ويسانيك فرماجة مرة كل فرماجة دوريدين هذا فرماجة معناه الدنيا هدات كوايسين فرماجة مركب فرماجة الرياضية يا ور بقيست عن هنا إذن شيئا nimankiina qaska wada aniga qas wadayaala idin dhigi kara maay mucaarad wax buu toosiyaa maay wax ma haleeyo intaba waa kan dalan joognaa anaga maraykanka mucaarad waa aragnaa wax buu toosiyaa maay wax ma haleeyo laakiin idinka wax baad haleynaysiin oqdad baasa idinku jirtaa weligayna maba maqalba habar jidir oo qori la'aane weligayba maqalba هاد ويرايدن قولي دينينا لو ديغي كو دغال مال إذن يري إلا أي حد waa ku socotaa qoriga macnaa hoos u dhacdeen quality-giina hoos u dhacay ki qoriga hadana waxaad bilowdeen shubnimo warnin binaadan dad raga idin ilaahay idin ka dhigay ninka ragana shubnimo kuma fiicna marka ani waxaan dhihi lahaa meesha sayto Axmed Madoobe ninkii kaalmeeya iyo ninkii kaalmeyninba Axmed Madoobe inuu shiiqiisi dhacay waxaad ka garanaysaa kii walaalkiisa dhihi jiray ilaahay naga dhigay Ethiopia ayaan ku mahadinaynaa ku shukrinay day daalunimo meeshu ka bilaabay ya war Ethiopia tii ku gumaysanaysa laga dhiciyay waay goormeed Ethiopia noqotay ani ya aanaa ilaahay Ethiopia iga dhigay hadaad Ethiopia tahay ma lagu gumaysan lahaa يا حولها ما لديه لها ناقا ما لكفسن لها هذا عفكا كو عدينيس ناقا هنا كفسنيه كم واي انتوا كم واي اموس محمد بوس انا عيرتيدو وان قاتا runtaadu waa ceertaydu waan qaataa laakiin waa la iga horeeyay keligayga ma qaato Minnesota waxa jooga ceerta qaata dhan waa idinka Minnesota ceer liskuma caayin karo ani waa qaata runtaadu waana qaadana waa lisku bartay hadday adile qaadan jirtay hadda qaadashadii ani kula qaadanayo ma dib ku qabaatay ani waa qaadanaan ku dhahay بينالا إنسان استقال معناه شوف إشكده هو يدا شوف هذا هو يدا أكبر طلي هو يدا شوف هذا وقاس هاي ها يقول رمبو محان هيدا يضاف بالنيو بلا حيوريرو يا دادا قد كي وجراي كوا اسكعليه وغادينك أكبرت عن اسكعليه
أقدر أنا يسوي أنا يفاني كرا يا ورو يحيو ها يحيو إيه أنا كوستن قراءة صاحب أنا كوستن قراءة سمسم أنا سوق أنا إذا سوق قرطو إذا لا سوق قرطو يا أسوق قرطو يسوق وسوق قرطو وايه كوستن قراءة أيام كده هي هاي نيد مغفورن تاهي خبيجا إنا يفرتي الربا كوستن ربا إنا قرطو أنت سبحان دينه يا حبك كم دينه بوران كده إذا السوق قرطو سمسم مسوق قرطو يسوق يسوق دلبطو ألو عبد المالك ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام إيه ورا ولا شيء وافي أنا عيد مبارك. عيد العافية حناق عيد العافية أنا حناق استوصل هنا فرماجي ما شاء الله وصومالي وهجاجس إن شاء الله صومالي وين إسباب جلتا هاي قارد السبن الصومالي اللي إذن كي gacmaha isqabsatay waqooyi iyo koonfur galbeed waa in horta Soomaali isku afkarto gartay dadkaas ayaa iskale dhulka Soomaaliya Ethiopia waxay ka tirsan tahay gelinka shanaad Ethiopia ay ka tirsan ayaga cadeeyay bayna Ethiopia yihiin Ethiopia gaarisana waxay ka tirsan tahay Kenya ka tirsan marka waxa weeye arinta meesha taalo waxa waaye qabri daarani ka yimid ee gumaysi Ethiopia ka soo محمد جاجوس وغير قرب قبدهره وأسلكيس إثيوبيا كيمد ليو بودي إثيوبيا جوغان حق ما هدول Soomaaliya inay afku ku qabsadaan waxa weeye Kismaayo Jubaland waxa iskale Soomaali ba iskale qaarada sebanka iskale waxa weeye Soomaali inay u istaagto weeye Soomaali waa inay ka horeysataa annagu Ethiopia waxba isku manihin Ethiopia dadka degana annagoo ka xoreynayna oo aad u galnay Ethiopia ayuu yiri Cabdi Ile yaa yiri Maxamed Siyaad Barre xoreysa Ethiopia annagu Ethiopian baynu yaa u dirtay buu yiri annagu aaba milla sanaan ilmihiisi baan la ilaaha illa Allah marka waxa weeye aniga Soomaali ahaan baan ugu doodi jiray shanta Soomaaliyeed shanta Soomaali ma jirtee labada Soomaali waqooyi Soomaali koonfur صح ayaa wada dhashay dastuurka 60kiina kuma qorna Ethiopia ugaadeen kuma qorna dastuurkii 60ka inay dalka Soomaaliya wax ka leeyihiin gartay laakiin waa soo karaan laakiin maamul kama noqon kara shacabka way ka mid gartay waxa weeye marka waad ogeed ninkii la dhahayay maxay ahaayeen abwaankii sangubaha waad ogeed maxamed farmaajo wuxuu yiri dalka hal la keeno waxay dhaheen annagu Ethiopian baynu nahay dhulkeena lagu aas ninkii abwaanka ahaa ee ugaadeen ee sangubaha haye marka dadka noocaasa annaga dalkeena xagee waxay ku leeyihiin oo wali caad oo Kenyatta ay siinayaan u shaqeeyaan Kenya inay dhulkeena Kenya siiyaan marka Soomaali waxaan leeyahay Soomaali waqooyi Soomaali koonfureed ha loo istaaga Jubaland nin asaga la gumaysan jiray inuu Soomaali gumaysto soo cararo Soomaali inuu gumaysto wal ani tanaan bal yaaban ka waran mahad salaad iga waran bal mahad salaad kelmadu shalay ku dhawaaqay waa khaldan yahay waxa weeye ani kula hadlaya maxamed farmaajo mucaarad baa kulligayna laakiin markay aniga mucaarad laakiin markay noqoto qadiyada dhulkayga waa inaan dhulkayga u hadlaa dhageyso mahad salaad waa ku qaldan yahay inuu ka hadlo uu Axmed Madoobe nin dhulkiisa Kenya siinaya nin Ethiopia ka yimid
nin shacabkii reer jubbaland oo walaalihii soomaaliya ku baabi'inaya inuu intuu soo istaago asoo nin soomaali ah oo qaaradda samanka ku jira dhulkiisa inuu etoobiyaan iyo kenya u ogolaado waa ku qaldan yahay mahadsalaad kelmaddii shala ka soo dhawaaqday waa ku qaldan yahay waa ku qaldan yahay waana ka soo horjeeda kana yeeli mayno shalay asagaa doortay maxamed farmaajo ayagaa ugu shubay yaa khasbay ninna ma qasbin cid khasabtay ma jirto may garatay hadday siyaasaddii isku fahmi waayeen adeer waa diidnay dhulkeenna hooyo ee soomaaliya inaad etoobiya iyo kenya u xalaalayso waa diidnay axmed jaajuus weeye dhulkiisa ha ku noqdo waa in etoobiya loo sheegaa waa in abi loo sheegaa reer etoobiya dhulkeenna waxba kuma laha dhulkeenna waxba kuma laha dhulka soomaali baa iska leh qaaradda sabankaa iska leh jilici jareer baa iska leh kenyaati iskama lahan axmed madoobe you must go wayna soomaali u midowdaa reerkan waa in la iska qabtaa raba dalkeenna inay wareejiyo axmed madoobe ninka shilinka shanaad borobi ninka baarlamaanka etoobiya istaagay ee yiri xoog ha looga qaado baddooda ciidamo ha la geeyo soomaali badanoo waxaa jirta kenyaati ah oo degan baa jira oo xildhibaano ka mid ahaa jira oo maamulka kenya ku jiraa jira nin u soo istaagay ma jirto ninka raba dhulkeena inuu etoobiya siiyo oo baarlamaanka etoobiya ka dhex dhahay ciidamo ha lagu ansixiyo lagu qabsado kenya ku qabsato badda soomaaliya iyo jubbaland ha loo diyaariyo waa nin ogaadeen dalka waxba kuma laha dhulkooda ha ku tag qaxooti bay ku yimid dhulkooda ha ayaga qaxooti buwaay macnaaba caddayn oo xilligii siyaad bare soomaali qaxooti ah ama jirin aan ogaadeen ka ahayn ogaadeen qaxooti waay waxaana soo dejiyey oy maanta ka abaal dhaceen oo dadku ka dhashay maanta ay kenyaati ku shabadeeyeen inay yihiin argagixiso al-shabaaba maxamed siyaad barre oo reer abtuu ahaayeen markii hore uba yidhi maxaa waatuu layn jire reer abtiyaashayda laaya uu yidhi laaya waan soo dhowaystay wax kastaan ka dhigay markii dambena asagay ku jeesteen barabyo haddana waa taasaa dhul soomaaliyeed oo maxay ahayteen degan yihiin soomaali bay waxay ku shabadeeyeen al-shabaab gado waxay dheheen al-shabaab daas weeye marka kenyaatigu ugu shireen ay maraykan ugu direen ay dheheen al-shabaab waa inay argagixiso ku tirtaa oo la diiday maraykankiyaaba naxariis noqday oo yidhi maya al-shabaab ku dari maayo barabyo ujeedadooduna waxa weeye mareexaan gedo inay ka dhigaan al-shabaab shacab masaakiimiina inay ku shabadayaan hantidooda iyo gaaskooda iyo dhulkooda iyo khayraadkoodana inay boobaanay rabaan waa diidnay annagu waxaanu istaagayna magaca soomaaliyeed no more daaro no more qabiil annaga soomaalinimaan u taaganahay calankaa bulugaa naga dhexaysa qaaraddaas soomaaliyeed baa naga dhexaysa dhulka soomaaliya dad gumaysi etoobiya ka soo cararay soomaali ma gumaysi war ogaadeeni anaa ka wadanisan anaa soomaali ah ogaadeeni waa koyto ogaadeeni waa maxaa la dhihi jiray qaxooti aniga wadaniyan nin qaxooti ahna in wadanka nala haysto ma noqonayso war soomaali ay ka adiga wadani baa tahay cid kaa xigta male jubbaland adigaa iskale yahay adaa iskale cid la kala leeyahay ma jirto qaaradda saban soomaali baa iskale soomaalida iskale meel kasta ay joogtaa waqooyi koonfur waa inay u kacaan jubbaland iyo badda soomaaliya waa inay u kacaan una sheeg meeshaasna abaabulka ka wadaynaa samsamna soo qabo dadka soomaalinimada ka dheehantahay soo qabo waa inaad magaca soomaaliya samsam ha isoo codsato ma hayo nin haye walaalo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu howsha الله كون أي وأنا عبد المالك حسن عايز أقرأ ألو مايا واضح ألو السلام عليكم السلام عدكا عليكم السلام ورحمة الله مقشاهد أدواكم مغلاسي في عن ما شاء الله هرتوا وحد السلام يا أمة الصوماليات ملك السيجوغان عيد مبارك عيد العافية ما شاء الله هذيك عافمات كي
waxa waaye waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed in may maqlaysaa marna hoosu noqon hadda waa ku maqlooyaa ها marka bal xaaladda maanta barnaamij qurux badanaa wadaa maasha allah iiga waran barnaamijka maxaan ku soconnaa xaaladaha dalka soomaaliya liyaa annaga hadda maasha allah waxaan ku socnaa cabdimaaligow xaaladda jubbaland iyo doorashadeeda oo dad khaas ah oo cid kale aan ku jirin oo jubbalandna dad oo intaa qowmiyadood degan oo qolo ogaadeen la yidhaahdo ha ahaado owlixan ha ahaado maxamed subeer balaayo reer cad ayagu un isku koobeen jubbaland doorashada waa ayaga maxaa la dhihi jiray qoladii kale maxaa la dhihi jiray kuwii tartamayaashu waa ayaga un ehe waa kaas dad kale maba jiraba qori iyo ayaga waay qori iyo ayaga siyaasad qori dhinac taagan waay marka arrintaasaan ka hadli haynaa iyo nin oo isku taray xildhibaan oo mahad salaad ay leeyihiin oo asna uu garab siiyey maxaa la dhihi jiray oo maxaa la dhihi jiray garab siiyey ninkan la leeyahay axmed madoobe asagoo xildhibaan ah arrimahaasaan rabnaa inaan ka hadlo okay hadalkaaga waa maqlay laakiin waxa waaye dad baa sheer garaynayo markay sheer gareeyaan codka hoosuu u dhacayaa ma garata codkaaga waa go-ayaa waxaa soo gelaya sheer dhay 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 buu dadaa isoo galo dadaa isoo galo aan iska celinooyaa dadaa isoo wacooyaa hal naag waa hal naagaa kugu waa istaagaya markay soo gashaba waa istaagaya haye marka arrimaha horta ilaahay hayasiro soomaaliya runtii markii loo hadlo soomaaliya waagii ay ku duubneed meelay gaartay maanta waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed ayaal dhibaatada haliska daayo dadka haliska daayo 30 sano waa nagu filan tahay inaf 30 sano waa nagu filan tahay intaan soo rafaadnay waa ogtihiin dhibaatooyinka aan qaxooti ku mutaysanay waa ogtihiin adduunyada waxaa qaxooti ka ahaa ama safri jiray dad la yar dad badan ay ka tagaan maanta ummaddii oo dhan waxay isku noqotay kanla la simoo kale cid wax dheer ma laha marka sinaanta ha lagu dadaalo maamul goboleedka jubbaland waxaan leenahay waa community isu tagaasihiin dad yow fara badanaa degan dalkaas ummado fara badanaa ilaahay ku aalada waxa loo qaybsado si cadaalada waddankaas macnaha musharax dadku ay ogol yihiin ummaddu ay isku raacsan tahay oo dowladda iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedkiisana hagaajin karo la shaqayn karo wax soo saari karo ummadda ha loo doorto midi ku taag faa'iido ma laha xoog wax ku qabsan karaa ma jiro qof xoog wax ku qabsan karaa ku maamuli karaa ma jiro waxa waaye higler adduunyada inuu maalin u taliyo ku talagalay maxaa ka raaca qof walba ummad walba oo dad gumaado ummad kale weligood ma raagaan shacabka naagta yaanyada gadayso naagta ninka cambaha iskale ninka qudaarta keeno ninka caanaha keeno ninka xoolaha keeno communitigaasoo dhan hadday ku jecel yihiin wax walba waa hagaagaya laakiin haddaad xoog ku kumaado ula hadlayaa maamul goboleedkaas axmed islaam uu hogaamiyo 2 teeran baad soo qaadatay labadaada teeran allaha kugu anfaco iimaanka allaha ku geliyo dhibaato ha isu keenin nin odayaa tahay ayadoo lagu jecel yahay ummadaada dhexgal hadday kuu ogol yihiin inaad ku noqotana waa kaa haddii lagu diidana qofkii ay doortaan garab ku sii
waa iga dardaaran waa maalin ciideed waa maalin macnaha ilaahay barakeeyey mudane yaxyow aad baadna u mahadsan tahay maxaa yeelay barnaamijka adaa noo suurageliyey inaan ummadda caalamka kala hadda halkan ugu hambaliyeeyo waxaan kaloo raacsanayaa axsaab baa jirta 4.5 waa laga baxayaa axsaabta ha lagu wada biiro siyaasadda dalka waxay isku beddelaysaa axsaab haddii ilaahay raalli ka dhigo 2 sano gudahood marka ummadda meel kastay joogaan axsaabtooda ha la shaqaystaan yurub ameerika soomaaliya kulli tartan doorasho qof iyo cod ah ayaan rajaynaynaa midda aan rabno waa middaas oo 4.5 maxaa yeelay hadda ilaa hadda oday dhaqameedyadii ka socota oday dhaqameedyo gacan ku rimika la sameeyey marba xeelad baa imaanaysa marba dhibaataa imaanaysa oday dhaqameedyadii isku dhegan dhibaashadii isku dhegan dhibki waa aragtaa qabiil wixii karaya ma leh shacbiga qof walba ha soo doorto ummadda ha soo doorato hala hadlo miiriyaha wuxuu u qabanaya ha u sheego shacbiga sida caalamka u shaqeeyo ay u doortaan aan isu dooranno saas aan ku shaqayno waa iga talo saan laguma gaarayo waaya gudoomiye waayahay dad kala soo qabana khayr allah ku siiyo adna caafimaad allah ku siiyo khayrna waan kuu rajaynaa waa mahadsan tahay mudane yaxya aad baad ugu mahadsan tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid mubaarak ciidul caafi amiin samsam isoo codso saamu kugu soo qaban karo waa ku soo qabanaa laakiin isoo codso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay qaxooti oo raba nin wadani gumaysta ayay ku saabsan tahay axmed madoobe oo qaxooti ah ayuu rabaa wadaniyiinta oo jubbooyinka degan iyo gado degan inuu dad kor kaga keeno oo u keeno maxaa la dhihi jiray kenyaati warniyo nimayo ninkii raba ina badda soomaaliya qaato ayuu la heshiinoyaa ciidamadiisuu keenaya war kenyaatiga la sheega ani kenyaatigaan u ekahay war soomaali horta inay hunguri un daba socoto war aniga iyo soomaaliga jileecda axmed madoobe yaa kenyaati u eg ani axmed madoobe yaa kenyaati u eg ya soomaaliya haddaad gar bixinaysaan ani axmed madoobe kenyaati yaa u eg anigii aba kenyaatiga ka soo horjeedaaye asaga maxaa kenyaatiga daba dhigay ya sababta asaga kenyaatiga daba dhigtay axmed madoobe maxay tahay ani asagana anaaba kenyaatigu u eg ya marka waxaa waaye idil waan arkooya isoo qabay leedahay laakiin sidaa kuma soo qaban karo sida adiga aad u soo gelayso u sheeg saas ha igu soo gasho sida adiga u soo gelayso ha igu soo gasho waa soo qabanaa laakiin sidaa inay xagga soo qorto isoo qabo kuma soo qaban karo okay marka yes hadda waa ku soo qaban karaa weli waaye ولي ما هي ولي كما هي ولا شيء marka waxa way adeeryaalow runta aan isu sheegno anigii kenyaati u eka inaan kenyaati ka soo jeesto oo aan iraado kenyaati badayda ama dhulkayga qaadan maayo ama caradayda la keeni maayo adoo jileeca yaa soomaalinima sheeganayso
inaad kenyaatiga aad la safatid warnimayow taas maxay ku tusaysaa waxaa ku tusaysaa inaad ninkaas soomaali ahayn soomaali anaa ya soomaali anaa soomaali aniga iyo ogaadeniya aniga soomaali ogaadeniya soomaali ma aha ogaadeniya waa qaxooti ka yimid kilinka shanaad waa kuwii aan xoreynaynin way ilaa haddii laga cabsanayo ya kuwii aan etoobiyaanka ka xoreynaynin waaye kuwii aan etoobiyaanka ka xoreynay ya xoreyntii aan xoreynin ma dhibaatada noo keentay haddana inay nooga wareegsadaan dhanka kenya oo baddayna ay la soo dagaalmaan kenya weligay ma maqal intaasana 60 ku dhawaadan jiraaye badda Soomaaliya iyo Kenya isku haysato weligay ma maqal ya weligay ma maqal hadda ka hor waxaa jirtay siyaad bare inuu u dagaalmay maxaa la dhihi jiray inuu yiri siyaad bare dhul baa Kenya iga haysata dhageysta war baa idin sheega dhul baa Kenya iga haysata markii dhul baa Kenya iga haysata uu waa dhulka inasi Kenya waxay tiri ninkii oo la dhihi jiray Jomo Kenyatta markaas joogay asna wuxuu yiri anigana dhul iyo dad iga haysata dhulka iyo dadkii aan ugu jeeda jareerta degan Soomaaliya oo iskale Soomaalida jareerta fiirisaan nasab u nahay oo Soomaalinimadayna ay wax u tahay ayaa idin sheega hal nin oo yiraahdo anay Jomo Kenyatta na soo sheegtay Jomo Kenyatta ayaa le oo tiraado waa la waayay hal nin ya waayo de waxay u socodeen inay dad Soomaali yihiin adigana daraada oo kaaga soo xoreynay maxaa la dhihi jiray aabaha Mele Zanabi aan daraad kaa soo wadnay soo wadistii aan kaa soo wadnay Mele Zanabi inta la nooga soo wareegsatay hadda waxaadba garab siinoysaa Kenyaati ya يا بالكبرن بل من الزنابي عابها من الزنابي وحنكسو عنا مبدئي من الزنابي وحاسدانا هبه الزنابي حدنا حبسي قد كجرتا يا حبسي قد كجرتا حبسي قد السبب ايات كجرتا كلي انا مع هانيسد ابديو كلي انا مع هانيسد dad badan oo hadda Soomaaliya ku dhuumanayo oo Kismaayo ku dhuumanayo ayagana way gelayaan anaasirti dhanad Kismaayo ku haysa anaasirti oo kilinka shanaad soo baabi'isay ogaadeen aad isku soofayseen oo idin warnin oo reerkiisi laayay ya reer kale maxaa ma dhaafi karaa ya nin reerkiisa laayay ya ogaadeenna xabsi bareeba maahe waan waxba kama hay aqli waan ku qaato maba qababe ogaadeenkii aqli qaba aniga maanta intay la hadli karaan rabaan ogaadeen oo aqli isku reebo ama oday imaado oo ninkan walaalkiisa aqli ku reebo oo ogaadeen maba jiraba hadduu jiri lahaa abdiile ay qaban lahaayeen hadduu jiri lahaa Ahmed Madoobe ay qaban lahaayeen arwaakaas Ahmed Madoobe ha qabtaan odaytinimo waxa ugu sheegaan odaytinimo ha yeelo ogaadeen ba hadduu aqli leeyahay war laba jeerad maciinsatay alxamdulillah adoo dalka waxba ku lahayn war yahoy ma yaqaan hadda maxaa la dhihi jiray Kamsuuma meeshay ku taalo ma yaqaano weydiiya waa kaas وعدتكي يري بند جماعة waxay noo jirtaa 12 kilomitir ayagoo joogan buuladan baalkii kale marka والنبي محمد aniga waxaan ogahay adduunyada yaa fulay Soomaaliya yaa fulay
soomaali waxaa fulay ogaadeen laakiinse hadda geesi wuxuu ku noqonayaa magaca soomaali geesinimadiis waxay ku jirtaa magaca soomaali samsam kuma hayo booskaas ina soo gashid way idil weydii bal idil weydii say ku soo galaysa idil weydii oo ku soo qabana marka aniga fulayga Soomaaliya waxaan u haystaa in ogaadeen yahay waayid ogaadeen ani dagaalkiis waan soo arkay asaga iyo habar gidiraan soo arkay wax ka fulaysan oo ilaahay abuurtay ma jiraanba ummadda ilaah abuurtay oo Soomaali ah ogaadeen wax ka fulaysan male annaga soo haray awoowayaashaynu way isla soo dagaalmeen waa la soo arkay waxay yihiin ogaadeen laakiin magac Soomaali ayay meel ku joogaan laakiin ay isaga joogaan waayid hadda keligood ma aha qaar daba dhilifyaal oo mareexaan ayay wataan oo daba dhilif maxamed sayid midka ay leeyihiin iyo ayaa wataan ya marka waxaa waaye aniga ilaahan ka cabsana markaan soo galo inta doorashadan ka dhacaysana sidaan baan u soo gelaa ogaadeen wixiis yahayna waa sheega war ninka ogaadeen ka cabsanayo ogaadeen ha ka cabsanina maxaa soo haray war yaa hooy Soomaalida tinta adag leh war Soomaalida tinta adag leh waa ka bixi rabaa Soomaalida tinta adag leh ayaan dardaaran siinaa aniga waxaa maqli jiray riwaayad inta kale hadda ma hayee oo laleeyahay boqonkii ogaadeen caruuruhu dilayeen ina daahir bacaan waaye gabar oo sidaa gobay noocaas oo kale leh oo ninkeeda leh ina daahir daf intaan ku iraada xiniyaha dirbacaan ku marooje waba sidaa haye riwaayad baaba lagaa keenay inaad doqon tahay anigana ma dhihin nin Soomaali ah ayaa riwaayad ku keen xilligiisii aad baray doqonkii ogaadeen caruuruhu dilayeen ina daahir bacaan waaye weli ma hayo sidil marka shareeray Soomaali jareeray halan idin dardaarana idin siina ummadda dhanna waa imanaysaa wari haddii caloolayda Kismaayo oo macnaha kawaankaas la tuuri lahaa oo idinka lacag aad ka dhigteen garaabada jaadka la tuuri lahaa aad lacag ka dhigteen ya oo lacagtaasna idinka shaqaynayni oo dadka dibadaha noo soo dira waa baahanay noo soo dira aad meesha aad ku haysaan war intaad gashaan goshiina aad gashaan haddaba dad walaalihiina ku nool dad beena sheegaysin been adiga kaas inuu ku noolaado adna ku noolan waayo oo aad dhahda al-shabaabtan ka soo codsaya saan way beenaala tahay dib aad geysatay darteedaad uga soo cararay war yaa hooy baha meesha gala fallaar samaysta gamuun samaysta duurarkiina gala Ahmed Madoobe maalintii iyo qoonkiisii doqomiinta ahaa ya doqonkii ogaadeen caruuruhu dilayeen ina daahir bacaan waaye gabadha lahayd haddii dalkaas ay qabsadaan wallaahi billaahi tallaahi korkiina sumad la saara anfihiina geeriin iska daayo idinkaa sumad la idin saarana idin lee hadalkaan iga qabso haddii dushiina sumadna waa ninkii ilaa afma oo jidib ilaa iyo afmado gaari dameer ku saaray casbu kugu rurtay ya oo yidhi anaa helay maxaad ka sugaysaa kaad caqli maad ka sugaysaa qof binaadan la helay oo waqtiga intee laga arkaa anaa soo helay war yaa ogaadeen kaas waay ogaadeen kaas waaye marka waxaa waay haddii oo idinka oo caqli yeelanayni caloolayda si fiican u cuna Kismaayo fadhiya ogaadeen iyo Amisom
isku jirta ha idin qabsato jubbooyinka marka taga haddaad wax ku helaysaan meeshaas waxba kama helaysaan waxba هذا جمال الدين هذا هي الو 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 وان كاتك جمال الدين وايد هلو وان كله هلو ما قبني مركو حاوي على تي حال وحاوي كل سمسم أذر مكوها يو ولا أنا وكما هاي إذا نكقبي لذي أنا نكما هاي مسوق لي سو مشان مكو أركي ماي أوكي مركو حاوي وريه بحد دلكينا حريستا الشباب تدحقلا اوه هوابا كبحذي هدنا محادا واسوق شوا كبحذي سمسم واسوق شي واتكبحذي كسونو سمسم كسونو مركا الشباب تبحى دنيهنا ماشي كجرتو قال وريا سومالي جلابة الشباب تنقولي وعيقا دولتنا وعيقون إذنك محا إذنك الرابع محا حداد الشباب تسكت سومالي جلابة كاوري سقبي قبيل كستو أحمد مذوبة عم بالشباب نمو كيمت أحمد مذوبة الشباب نمو كيمت بيان لسوشيقين سيرار كغادر كيسان كحيين وها الشباب وها سومالي سعطتنا في الشباب الشباب عيب معها عيب معها سمسم واد سوق شيء واد كبح ذين كلها هذين سيدي هدو سوقل مركع الشباب عيب معها دن يا كوبا دواي يا نين إيلو ذي بعد الشباب قلاعون بين يعني السوشيجين نين حلواي الشباب وعادا يا نين سيحون لو قلي الشباب وعادا يا نين ديب لو جيستي او ديب كيسي وحكا كمان واي الشباب وعادا الشباب تنادر كيسي ديب بنيال واي بنيال أي الشباب يسكوا ورصتي مركاني وحايدين ليهي علوليدا كسماي عاد كعنيسان كتغا علوليدا كسماي عاد كعنيسان كتغا وحبا إذن مطريش والله دولكينا لغادنا مردو دولك اسكا دافع إذنكا اوغادين دقنك اوغادين والله تيم برس إذن سارنا تيمبرا جاليسي علامة ساري لوديسي علامة ساري أيو إذن سارنا يا كافن كله أبو غادر عدي نينك اسكو تلما يا هو داتري أنا يا كافن كله واحد ده أن بواديه كرا نينكي أو بير دات تجي عم بدلات علامة ديستي أو يريك أفكو بناء أنا سوهلي يا فرت قدودا صوت تاغو فرت قدودا انا كو شيغا فرت قدودا صوت تاغو والله ابن آدم كان قردر دلاب اسكو قرقارو يابا أنا هدا أغادين أهان لا واب إسعاسي لهاب أنا نولا إسعاسي لها نول والله أنا نولا إسعاسي لها أساقنا وقولي أغادين أهاي غير عبد الله أهاي غير هبلوبان أهاي ما ها اسكو شيء إيسا بلن مقشد أحد مقشد
يا نينك بين آدم كرجع مرة دوسن أحد لهين قول لهين محو كفانا با محو كفانا أنا هدان قول لهين ألو السلام عليكم. عليكم سلام adeero adi dad maa waanin haysaa dad maa ilaahay ka baqadho haysaa mase dadaa caan haysaa waaba kula yaaban yahay aniga dad macaan weeye ninku wixiisii hayn ku sheegoya waxaa ogaadeen kulli sheekh iyo shariif batuuglaamiya dad may dhacayaan kulligood ogaadeen khayaan hadday dad dhacaynin kii jooga maxaa la dhihi jiray maxaa la dhihi jiray kilinka shanaad oo ayaga keliya isku ah maxay isku baabi'iyeen odayaal male miya ayaga kelima male miya haddana waa soo baxayn jubbooyinkay noo imaanayaan odayaal male miya oo nin dhahay warya hoy waddadan aad ku socotaan waddo fiican ma aha ya adeero maxaana horta nin odayaa tahay inaan weydiina reer shabeellaha qalaafa degan ogaadeen miya reer shabeelle ogaadeen miya maxaa dhacday reer shabeellaha qalaafa degan ogaadeen miya ilaa kililkiisana ogaadeen isdeganaa dhahdee adiga aqligaa waaba yar yahayba ani reer shabeelle aqligeed maxaa isku yar yahay ani reer shabeelle maxaa qoortii geliyey haye waxaan kuu sheegaa annaga waa isla deganeene waa isla cunayne waa isla cabaynaye haddii dhib uu imaado waddanka oo dhan qabiil maa keena ogaadeen adiga haddaad tahay reer shabeelle maxaa nimco idinku haysataan maxay adi markii horta dagaalkan sokeeyey intuu bilowday iska dhaaf dadkii oo dhan bahalay noqdeen laakiin intii ka horreysa adi maxaa dhib oo lagugu hayay aniga hadda waxaan ka sheekayna adaabi ii markhaati fure hadda aniga waxaan ka sheekayna waxaa waye inta dagaalka hadda bilowday maxaa bahal idinka dhiga idinka soomaali oo dhan aa noqotay bahalnimadaa waa caddaysatay mo soomaali oo dhan laakiin maya adiga inaad bahal tahay laakiin waa caddaysatay ogaadeen inuu bahal yahay waa caddaysay mo ogaadeen keli bahal ma ahane hadda kuwa aa leedahay ha lagu wada biiro ninka dadka qowraco dad kale ma ahe soomaali baantu waaye makala hadasho muslimkan qowricin ma dhahdaad adi dhegayso aniga horta adiga dhegayso hadalka dhanba ma fahmaysidba waa ku fahma maxaa ku fahmi waaya hal cidlaad ka lalmataahe adi markii soomaali oo dhan aa isdagaashay wax kastaa burburay dowladnimadiyaa burburta dalkiyaa burburay qabiilaa hadda haysataa aniga naftiga raajubada hoosaan kula ahay raajubada dhaxan kula ahay waxaa gartamaho waa isdhex deganeen wax dhibaata ama jiri jirin hadda markii haddaad leela ogaadeen ana dhacaya adigaba kaaga mindi qarofanaas wataayo dadku qowracaaye ma hadashid maxaa oga hadli waayse kan waa ku dhibee kii kale maxaas kuu dhibi waay adi dhegayso waran kuu sheegaa haye adi inteed joogtaa horta aniga maraakanaad joogtaa maraakanana kula joogaa inteena ka timid waxaan ka imaaday kismaayo xaafadda shaqaalaha okay waxaan ku idhi aniga ilaahay haddaad ka cabsanayso oo adiga fiiriya aniga kismaayo ogaadeenka kismaayo degan kaasayta ogaadeen lama dhaho hadloya hadalkaygan aan ku celcelinaya adigiyaanba waxba haysan adig kismaayan jooga ma dhihi haysido ani kismaayo hadda ma jooga laakiin reer kismaayo ahaan ku iri reer kismaayo adiga ma kasoo zuushay kismaayo dad ma ku joogo waa ii joogaa waa la ii joogaa ma kuwaas ogaadeena maxaa lagu tilmaamaa ilaahay adi waxaa ujeedaa dadka etoobiya ka imaada mahayno may hadda adiga kismaayo kuwa aad kaga soo tagtay oo tolkaaga ah ilaahay ka cabso dadkan kor ka yimid iyo ayaga maxay kala yihiin way kala yihiin bacdi maxaa la hadlaysaa marka dad waraaba dhulwaabaa u yimida meesha hadda adi markiid ogaadeen dhahdo sheekh iyo shariifa isku wada aad wada haysataan idinka qaateen magacii waa la idinka qaatay idinka shariifaad noqoteen waaba idinka bixi reer kismaayood
dadka anay haye kilinka shanaad dadka kilinka shanaad ka yimid adi ma kilinka shanaad dadka timid ani kililka shanaad kama imaanina reer jubbaland ahay reer kismaayo ahay jubbaland waxan hadday bilaabatebe jubbalandkan hadday bilaabatay jubbada hoose iyo jubbada dhexe warshada sokorta mareeray kaamka qoli dhiwanada kula deganay laakiin jubbaland jariskeeda jabaa loo soo maray dhaantada ma maqlino jab waa loo soo martaa been maaha laakiin waxaa waaye jab kastood soo marte inaad maxaa fiican dadka isku wado soomaali waa lis wada dhex deganaa ama baantu jareer ha ahaado ama jileec ha ahaado laakiin baruur kasta waxaa la dhahay baruur kasta hal baruura qurmisaa hal qoom yar waxay sameeyeen qabiil dhan inaad ku dheganaatid ma aha markii la dhaho qabiila lagu dheganaana qabiilkan argagixisada soomaaliya maanta ka dagaalanto nin kale oo nin qowraca ma jirto oon soomaali baantu ahayn marka inaad xaggaba isxaxaganna ma ahane iska dayno ilaahow dalkiiyo dadki noo hagaaji aan dhahay maanta argagixisada soomaaliya joogto nin kale oo bila'aadmi qowraca ma laho oon soomaali baantu ahayn ragga tooriyaha qalloocan wato oo dadka qowriciisa u taagan waa ayaka marka adeer macaanow xaggiyo xaggaba waa la isku dhex waashidhegayso anoo soomaali baantu ah haddii maanta dad qowraca aan ku jiri lahaa adiga xeelaa iyo waxaasaad sheegaysa oo oo dadkaas oo qoryaha qaatay waa la kala yahay waaba iga cabsan laheedba orkeyga uga bixi lahaayeen kuwaan adeer nabad maahino idhegaysahay waa ku dhegaystiye eelayna qaraxa waay adina qowracaa tahay waa lis og yahay wax qarsoon male soomaali qaabilsan qaybta qaraxana eelaaya qaabilsan waa la wada ogsan yahay faatixada aamarana ma ogya ree hebelow haddii wadno weligeed soomaali ma hagaaga adigana maxaad ku jirtaa adigana meeshaad ku jirtaa aniga ani qoriga ku jiraa qorigaad ku jirtaa miya qorigan ku jiraa ma diidana ani makaa diiday laakiin qowrac maxaa i geliyey qowraca maxaan faa'iido ku qabaa wax faa'iidood ku qabta ma jirto ilaahay ka fogaanshahan anna qoriga wax faa'iido kuma qabiyoon ilaahay ka fogaanshahan waxaa waaye waa dhiman tahay haye haddaan awood oo qowracba aniga aan leeyahay ya seed adiga waxaygu ku haysan karta adigana qoryaad haysataa anigaaba towray geesinimo oon aad dadku qalooyaye see waxaygu ku haysani adiga awoodda qowraca aad leedahay argagixisadeed qaybta qowraca u qaabilsan tahay qof maskiinoo lasoo qabta oo awood lahayn qowraciisa adiga aad buriya qarxi ana eelaya qaabilsan kan oo jidka gala baabi'ana soomaalida kala qaabilsan taasba makaa diidaay laakiin taaday ma arkaysid taydale arkee taas ceeb waay balaayada naga qaad aan dhahno xaggiyo xaggabo qabiil soomaali waa is dhamaystay qabiilka adkaadana male tahay beenaalaad tahay ogaadeynimadaana waa caddaysatay beenaalana waa tahay deegaan maalaheena markii samaan kuulada waa bedelantay laakiin adigaba shala siciid markaskugadalay kuwi ka dambeeyay marka dhulka adiga malihide adeerow dadki way aqli daran tahay waxay ku leedahay anigana waxaan qaabilsanahay qoriga adna qowraca eelayna qaraxa alla haddaanba wax qowrici karo axmed madoobe maa iskaga saara dalkeyga ya oo meeshuu ka yimid maan u celiyo waxay noola imanaysa la eg ilaahay aqli ha idin sahlo aqli ma lihidine
dantaadaad u hadlaysaa hebel cabdiqani cadde oday waa la karbaashi markaad leedahay dantaadaad u hadashay idna ima karbaashayso ani ma waxay u karbaashaysaa qowraca weligayba dad ma qowricinba haddaan dad qowrici karayo ya kismaayo caloolayda ma gadan lahayn waa waalan tahay waaka dad bay caynayaan maxaa dadku cayni wixii runtaa lagugu sheegay maa dadku caynaysaa aniga waxaa rabta idheh afweyn dhaafee sanweyn idheh afweynaantana ilaaha ii sameeyey sanweynaantana ilaaha ii sameeyey cumrigana ilaaha ii sameeyey wax kasta aan wato ilaaha ii sameeyey laakiin adiga wax ilaahay aan kuu samaynin ayaad samaysanaysaa ya wax ilaah aan kuu samaynin ayaad samaysanaysaa meesha inaan iscaynana maba fiicnaba idil waad mahadsan tahay walaashay marka wakti waay waa ka baxayaa gabadhaanna u sheeg habka lagu soo galo u sheeg walaashay samsam inay ii soo gasho waan jeclaa laakiin nasiib daro waa isfahmi la'anahay marna way soo gelaysaa markay calaamad soo gasho haddana cataabo aan idhaahdo jaaway ka baxday haddana insha allah biidni illaahi kariim dhib ma leh waan soo gelayaa hadday dibadda joogtana aniga inta doorashadan ka dhexaysa saanaan u soo gelaa ninkii ooyo iyo kii kale aqli daro 7 guddi aa la sameeyey 7 guddi kulli waa wixii oo ka yimid kilinka shanaad waay iyo 2 nin oo ay micnaha daba dhilif u tahay oo maxamed sayidkan ay leeyihin oo wato ayaa ku jiraan waxaas ma bini'aadanima dadkii waddanka ku badnaa caaway war hataa hal nin ma ugu dari karte war waddanka maraykanka aan joogno war haddii shirkadaada fiiri madoowi caddaan waay haddii shirkadaada caddaan keliya ay tahay dowladda hataa qandaraas kuma siinayso maxay raadsanayaan qof madoobay raadsanayaan ku dhex darsanayaan haddii kale waxaa la leeyahay shirkadaada waxa waaye shirkad oo wax isku taag waay qabyaaladiista waay haye marka ilaaha kuu roonaadee إن شاء الله horta waxa aad leedahay oday Soomaaliyeed iyo kan iyo intu way oday Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa ninkii isdhowra oo siyaasadan qoriga dhinac taagan iskaga xara kaasa oday Soomaaliyeed la yiraahdaa laakiin nin siyaasadan oo qoriga ka soo horeeyo oo dhex gala kaas oday hadduu ahaana odaytinimadu uu ka baxaya waay asagaa galay siyaasad qori dhinac taalo alxaasil aniga waa idin salaamay haddii haddaan isku xumaanayna aan iscafino waa kaasayto inta ku jirto sheer gareeya waan ka baxayaa walaalayaalow khayran idin rajaynaa insha allah biidni illaahi kariim sheer dhaha idin leey waan ka baxayaa insha allah waa kaasayto khayran idin rajaynaa kolleyba saacadda maraykanka caawo aan soo galaa 10kii fiidnimo markay tahay haddii ilaahay raali ka noqdo waa baashaalaynaa waa iska baashaalaynaa idiley khayran idin rajaynaa reer yurub reer kanada reer soomaaliya ilaahu dhibta allah idinka qaado dhib idinka iskeenteen ayaa idin haysataa dhibtaasna ilaahma idinka qaadi kara idinkaa iska qaadi kara iska qaada khayran idin rajaynaa assalaamu calaykum